bannaanbaxan ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Qooteen ee dalka Koonfur Afrika waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ururada ka shaqeeya xuquuqda aadanaha hay'adaha ka jira dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. bannaanbaxayaashan ayaa socod ku soo wada maray waddo dheer oo isku xirta ilaa dhowr xaafadood oo ku yaala magaalada Johannesburg kuwa oo maalmihii la soo dhaafayay qaarkood ay ka dhaceen bannaanbaxyada rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dadka Afrikaanka ee ku nool dalkan Koonfur Afrika ayagoo wato boorar ay ku qornaayeen ereyo lagu muujiyay in shacabka South Africa aysan raali ka wada ahayn dhibaatada loo geysto dadka ajaanibta isla markaana shacabka Afrika yihiin kuwa isku mid ah. gudoomiyaha gobolka Qooteen madax diimeedyada ka jira dalkan Koonfur Afrika iyo qaar ka mid ah ururada bulshada ayaa goobta kula hadlay dadkii isugu soo baxay waxaana dhammaan si wada jir ah u cambaareen dhibaatada soo gaartay dadka ajaanibta oo dalka Koonfur Afrika waxaana shacabka ay ugu baaqeen inay joojiyaan falalkan jinsi nacaybka. Unite Africa, unite! Unite Africa, unite! Unite South Africa against xenophobia, unite! Thank you very much. qaar ka mid ah Soomaalida ka soo qayb gashay bannaanbaxan ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan bannaanbax iyo waxyaabaha ka bedeli kara xaaladaha ka jira dalka. bannaanbaxan soo kordhin karaa oo la qiyaasi karaa inay wax badan ka bedeli karto wejiga South Africa in la dhihi karo South Africa kala jirta ka soo horjeeda xenophobia South Africa kala jirta ka soo horjeeda waxyaabaha dhacaya South Africa kala jirta Afrikaana ma amisan bana fadhiida waxa way waa Bishaar Maxamed Ibrahim waxaan ka yimid magaalada Soomaaliya waxaan yimid meeshaan inaan muujiyo in mar dambe xenophobia dhammaan dhacaynin oo dalka la dilaynin ayaan yimid xenophobia dhammaan jirin ayaan yimid waxaan soo gareynaa wadanka waxaan joognaa wadanka Koonfur Afrika intay socdeen bannaanbaxayaasha waxa wadooyinka la marayay soo buuxdhaafiyay kumanaan qofood oo ka soo qaaradda Afrika isla markaana ku nool magaalada Johannesburg waxaana ay aad ugu reaaqsanayeen dadaalka loogu jiro xalinta arrimaha jinsi nacaybka ee muddooyinkii dambe ka jiray dalka Koonfur Afrika. Cabdullaahi Kulmiye TV-ga qaranka Soomaaliyeed magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika.